تعالى وبركاته لما أنا هلكان حق سلامة أنت مقل كذي مقيف تقاني لما نسحب كذا بعد سلام حروا إن هلكان كشوي لما أنا رنا وأبكينا إني بين تحي لكن أنا قاعد كيني إني بين تحي وأنا يكسر هذا اللي وده ما بتعنك أي وضع يقدعي كل بالمستقبل هم ولا هاي كفر دوني إنه قرص ده مجرد لكن بين تحي وضع يقدعي سومالية وقع سومالي لما أنت ودمهم لكن دتك قار وجعل دتك إن النبان ما كان بيعبرتان وإيش كرادينه يقدعي أنا لما أنتي ما إذا أنتي على أصحابتي إذا أنتي نعبتها وأنتي على هاي وأيو وحي سكر الناس من هاي نوع لما مسلمي أصحابتي مش قدرتوا ضمبين عيون قروح هذا شيء وحنا شاكتين مقالك برا بلوشة الوقوفة في أيضا كترجمة وياهاي مد بين أبورة وحنا برتة تيك توك مقال صور بتكوشكتي إنه ياهاي وركاسي ور بين أبورة إسلام مركزنا لقفة في أيضا وحنا شاكت تدكفة في إنه قرنا يسو إسلام مركزنا أيهن تدكسور جيدا هر مركا يصيدوا كلونا أنجاري أي تري عيون قروح مرة كهذا شيء أرمها سوشيال ميديا كصعدة شيء إن مقالك مقال قلما laga duubayada asahaati ayuuni oo heed gabar ku nool magaalada Muqdisho isla markaasna aan ka baraha bulshada Soomaalida gaar ahaan TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat iyo waxa la halmaalay baraha bulshada Soomaalida ayaa waxa ay gabadhani maalintii Khamiisteed muuqaalkan oo baraha bulshada soo galay isla markaana waxa muuqaalka lagu faaqiday baraha bulshada Soomaalida qof kasto magac kale ku leh baraha bulshada Soomaalidana muuqaalkaas uu ka falceliyay wuxuuna ka dhiibtay ra'yigiisa kaga aadan soo bandhigitaanka muuqaalkaasi inkastoo muuqaalkaasi dadka ka falceliyay baraha bulshada Soomaalida oo ahaa mid zaid ah isla markaana faafitaanka barnaamijkan oo sabab u ahaa caanimada ayuun qurux ayaa waxa dhacday in muddo 48 saac ka badan ah ay bariyaha bulshada aysan waxba soo dhigin isla markaana waxa la arkay bar Instagram oo ku xuriyeen dad ka badan 400 kun oo magaca ayuun ku qornaa oo dhammaan sawirada halkaas ku jiray la tirtiray isla markaana janaalkaasi remove la dhahay oo laga saaray hawada Instagram-ka si kasta ha tab ayuun qurux waa gabar Soomaaliyeed ku nool magaalada Muqdisho isla markaasna waxay qalanjadan quruxleeda reer Muqdisho ay soo aanbaxday sanadihii 2016 wixii ka dambeeyay ayadoo noqotay qalanjo aan ka ah geeyiga Soomaalida fadlan daa ku cusubtay janaalka subscribe saar si ay kugu soo dhacaan xogaa ugu horeen bartan soo galino like na saar muuqaalka si share gareeyo asxaabtaada